Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti habboon daawadayaashana meel walba aad joogtaan iyo si kastaba aad noola socotaan. Halkani waa channelkeena Hoggaan Media oo alaaba aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay dunida, dhacdooyinka caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waa 9 Abriil 2026 qodobada wararkeena aan ku soo qaadan doono isla markaana aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona haddii Rabbi uu qadaro. Donald Trump ayaa si kulul u dhaliilay NATO arrimaha la xiriira Iran awgeed kadib kulan uu la yeeshay Mark Rutte isaga oo mar kale dib u soo hadal qaaday hanjabaadii uu horay ugu jeediyay Greenland. Haddaba faahfaahinno iyo macluumaad dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kulankaasi. Goordhow ayaan idinla wadaagi doonaa haddii Rabbi uu qadaro. Qodobka kale aan ku soo qaadan doono intaan ku guda jirno tabinteena haddii Rabbi uu raali ka noqdo, ururka Xisbullah ayaa gantaalo ku garaacay degsiimo ay Israa'iiliyiintu leeyihiin iyagoo ku goodiyay in weeraradu ay sii socon doonaan ilaa iyo ay dhammaanayaan waxa ay ugu yeereen gardarada Sahyuuniyadda. Haddaba qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa intaan ku guda jirno tabinteena. balse intaan u gudgalin marka hore waxaan ka codsanayaa muuqaalka haddii uu soo gaaro like noo saar. haddii aadan ka mid ahayn bahdeena fadlan nagu soo biir oo janaalka subscribe noo dheh, gambalaalkana furo si ay ku soo gaaraan xogihii iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka. magacaygu waa Hashim Adam. ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena. hagaag haddii aan ku horeyno qodobka ugu horeeyo ee tabinteena, Donald Trump oo ku dhaliilay NATO arrin la xiriirta Iran kadib kulan uu la yeeshay Rutte isla markaana mar kale soo hadal qaaday hanjabaadii Greenland. Haddaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si kulul u dhaliilay isbahaysiga NATO isagoo ku eedeeyay in uu ka cagajiiday ku biirista dagaalka Washington ay kula jirto Iran. isla mar ahaantaana waxaa u muuqday in uu dib u cusboonaysiiyay hanjabaadii uu horay ugu jeediyay jasiiradda Greenland. Arrintaas oo timid kadib kulan uu la yeeshay xogayaha guud ee NATO isaga oo wax ku qoray baraha bulshada uu ku leeyahay Truth Social lagu magacaabo. Trump ayaa xarfo waaweyn ku qoray sida tan: NATO ma aysan joogin markii aan u baahnayn, mana joogi doonto haddii aan mar kale u baahanno. Hadalkan ayaa yimid kulan uu qaatay 2 saacadood oo uu aqalka kula yeeshay xogayaha guud ee NATO Mark Rutte, maalin kadib markii Mareykanka iyo Iran ay ku heshiyeen xabad joojin. Ka hor kulankaas, afhayeenka aqalka cad Caroline Leavitt ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah NATO ay dhabarka u jeediyeen shacabka Mareykanka, kuwaas oo dhaqaalahooda ku taageera difaaca dalalkaasi. waxayna intaasi ku dartay in Trump uu la yeelan doono madaxda NATO wadahadal toos ah oo daacad ah. waxayna soo xigatay hadal uu madaxweynuhu yiri, waa la tijaabiyay wayna ku fashilmeen. hadalladan kulul ayaa sare u qaaday walaaca dalalka ee reer galbeedka qaarkood, kuwaas oo ka baqaya in Trump uu tallaabo u qaado ama ka bixitaanka Mareykanka isbahaysiga NATO oo uu dhowr jeer ugu yeeray warqad maran oo aan awood lahayn. dalal badan oo NATO ka tirsan ayaa diiday in ay furaan hawadooda diyaaradaha militariga Mareykanka ay u furaan ama ay soo diraan ciidamo badeed si gacan ay ugu geystaan furitaanka marinka muhiimka ah ee tamarta Strait of Hormuz, kaas oo Iran si wax ku ool ah u xanibtay. Haddaba Trump kadib kulankii uu la yeeshay Rutte waxa uu sidoo kale u muuqday in uu dib u soo nooleeyay hanjabaadiisa ahayd in Mareykanku uu la wareegi karo jasiiradda Greenland. jasiiradda ay maamusho dalka Denmark oo xubin ka ah NATO. arrintan ayaa horay u gilgishay xiriirka ka dhaxeeya dalalka isbahaysiga ka hor inta uusan Trump bilaabin dagaalka uu kula jiro Iran. Haddaba Trump ayaa ku qoray baraha bulshada sida tan: ha iloobina Greenland, dhulka barafka ah ee weyn si liidata loo maamulo. Dhanka kale, Rutte oo Yurub loogu yaqaano naanaysta ah ninka Trump ku qanciya,
sababtoo ah xirfadiisa uu ku ilaaliyo xiriir wax ku ool ah uu la leeyahay madaxweynaha Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta CNN in Trump uu si cad ugu niyad jabay dalal badan oo NATO ka tirsan. Ruuti ayaa sheegay in kulankan ay yeesheen uu ahaa mid toos ah oo furan, wuxuuna xusay in inkastoo uu fahamsan yahay niyad jabka Trump, haddana uu ka hor yimid qaar ka mid ah dhaliilaha ballaaran ee loo jeediyay dalalka Yurub. Waxaan sidoo kale tilmaamay in inta badan dalalka Yurub ay gacan ka geysteen arrimo badan sida saldhigyada militariga, saadka, ogolaanshaha duulimaadyada hawada iyo hubinta in ay fuliyaan ballanqaadyadii ay hore u sameeyeen, ayuu yiri Mr. Rutte. Wuxuuna intaasi ku daray waxa uu Mareykanku ka qabtay Iiraan wuxuu suurtoobay sababtoo ah dalal badan oo Yurub ah ayaa ka dhaweeyay ballanqaadyadooda. Dhammaantood ma ahayn, taasna waanu fahamsanahay niyad jabka uu ka qabo. Laakiin sawirku ma aha mid hal dhinaca ka kooban, waa arrin dhinacyo badan leh. Ruuti ayaa sidoo kale uu diiday aragtida sheegaysa in dalalka NATO ay u arkaan dagaalka ka dhanka ah Iiraan mid sharci darro ah, wuxuuna ku dooday in Yurub si ballaaran ay u taageersan tahay in la weeqo awoodda Iiraan ee hubka nuclear-ka iyo gantaalada balastiga ah. Wuxuu sidoo kale ka digay in diblomaasiyad dheer oo aan damaanad lahayn ay sababi karto waxa ugu yeeray xaalad la mid ah tan Kuuriyada Waqooyi oo ah marka wadaxaajoodyadu si dheeraadaan ilaa iyo wadan uu yeesho awood nuclear ah, markaasna ay goor dambe noqoto in tallaabo laga qaado. Markii dhowr jeer la weydiiyay haddii Trump uu sheegay in uu ka bixi doono NATO, Ruuti si toos ah uguma jawaabin su'aashan. Isbahaysiga NATO oo ay xubno ka yihiin dalal Yurub ah, Mareykanka iyo Canada waxaa la aasaasay sanadkii 1949 si looga hortago awooddii Midowga Soviet, waxaana tan iyo markaas ay noqotay tiirka ugu weyn ee hamiga reer galbeedka. Isbahaysigu hal mar oo kaliya ayuu dhaqangeliyay qodobkaasi difaaca wadajirka ah, taas oo dhacday kadib weeraradii September 11 lagu qaaday xarunta ganacsiga adduunka ee Mareykanka sanadkii 2001. Si kastaba ha ahaatee, weli ma cadda doorka uu Trump ka filayay NATO in ay ka qaadato dagaalka ka socda Bariga Dhexe. Dhanka kale, wargeyska The Wall Street Journal ayaa sheegay in Trump uu ka fiirsanayo in uu ciqaabo qaar ka mid ah dalalka NATO oo u arka inaysan wax taageero ah ka bixinin dagaalka, isagoo qorsheeyay in uu ciidamada Mareykanka ka saaro dalkooda. Qorshahan, sida uu wargeysku sheegay, ma gaarayo heerka hanjabaadii Trump ee ahaa in Mareykanku gabi ahaanba ka baxo NATO, tallaabadaas oo u baahan ogolaanshaha Koongareeska Mareykanka. Hagaag, Xisbullah oo gantaalo ku garaacday degsiimo Israa'iiliyiin ay leeyihiin kuna guudisay in aysan joojin doonin ilaa iyo gardarada Sahyuuniyadda ay dhammaato. Ururka iska caabinta Lubnaan ee Xisbullah ayaa ka falceliyay weerar ay ku tilmaameen gardaro ay fulisay dowladda Israa'iil, iyagoo riday tiro gantaalo ah oo lagu beegsaday degsiino sharci darro ah oo ku taala waqooyiga dhulka la haysto. War ay ururku soo saareen ayay ku sheegeen in ay bartilmaamsadeen degsiinta Manaara, taas oo ay ku tilmaameen tallaabo lagu difaacayo Lubnaan iyo shacabkeeda, isla markaana jawaab u ah jabinta heshiiskii xabad joojinta ee ay samaysay Israa'iil. Xisbullah waxa ay sheegtay, waxaan beegsanay degsiinta Manaara si aan u difaacno Lubnaan iyo dadkeeda, annagoo ka jawaabayna jabinta uu cadowga uu ku sameeyay heshiiska xabad joojinta, iyadoo iska caabintu ay ku dhegneed heshiiska halka cadowga uusan sidaas yeelin. Ururku wuxuu sidoo kale ku adkaystay in weeraradan aysan istaagi doonin ilaa iyo ay joogsato waxa ay ugu yeereen gardarada wadajirka ah ee Mareykanka iyo Israa'iil. Jawaabtani way sii socon doontaa ilaa ay dhammaato gardarada Israa'iil iyo Mareykanka ee ka dhanka ah dalkeena iyo dadkeena, ayaa lagu yiri bayaanka hore. Israa'iil ayaa weeraro ku fulisay meelo kala duwan oo ka tirsan Lubnaan oo ay ku jirto caasimadda Beirut. Weeraradaas ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 182 qof iyo dhaawac gaaraya 890 kale, sida lagu sheegay tirokoob hordhac ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan.
Warbixin dambe oo la cusboonaysiiyay ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay gaadhay 254 qof halka dhaawacuna uu kor u dhaafay 150 oo qof. Israa'iil ayaa marar badan ku xadgudubtay heshiiskii xabad joojinta ee sanadkii 2024 ay la saxiixatay Hezbollah. Heshiisyadaas oo la filayay in Tel Aviv uu ku joojiyo weerarada si kordhaya ee ka dhanka ah Lubnaan, kuwaas oo horey u sababay kumanaan dhimasho ah. Tan iyo 28 Febraayo markii ay Israa'iil iyo Mareykanka ay bilaabeen wajigii ugu dambeeyay ee gardaradu ay ku beegsanayeen Iiraan, Tel Aviv waxay isla mar ahaantaana kordhisay weerarada ka dhanka ah Lubnaan. Hagaag, haddii aad halkan nala soo gaartay, dhab ahaantii waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga ah aadna siisay. Haddiise aan mar kale ku xasuusiyo, fadlan hanaga hilmaamin like-ta oo la wadaag asxaabtaada muuqaalka si meel dheer u gaaro. Aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee faallooyinka. Tan iyo intaan tabinteena kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaan Allah.